ugu yaraan halka bit ee xogta ah oo aan ku isticmaalno aaladaha casriga ah wuxuu leeyahay sumad qiimo aan ku gadano, laakiin waxaa jira hal tiknoolajiyad oo muhiim ah ayna aaladaheena in badan oo kamid ah ku xiran yihiin, taas oo ah bilaash. Waxayna u ogolaataa teleefoonadeena inay jihooyinka nagu hagaan meel walba aan adduunka ka joogno, waxayna hadda fududeysaa isticmaalka gawaarida iswada. tiknoolajiyadaasi dabcan waa Global Positioning System oo loo garan og yahay GPS, nidaamka dayax-gacmeedyada ee qiimaha $12 bilyan ah ku baxday samayntiisa iyo howlgelintiisa, welina ay adeegyadiisu bilaash yihiin adduunka oo dhan. Hagaag, dhab ahaan ma ahan bilaash. Canshuur bixiyayaasha reer Mareykan ayaa bixiya lacagtiisa, waxayna ku bixiyaan celcelis ahaan $2 milyan maalintii si uu u sii jiro una sii shaqeeyo nidaamkan. Laakiin weligiis ma ahan free ama bilaash. Dayax-gacmeedyadan waxaa loo sameeyay inay isticmaalaan ciidanku si loo siiyo qaybaha kala duwan ee ciidanka wax tilmaan cad ka bixiya xogta halka ay ku sugan yihiin diyaaradahooda, maraakiibtooda iyo xataa askartooda meel walba oo koonka dushiisa ay ka joogaan. Dayax-gacmeedkii GPS ee ugu horreeyay Navistar 1 waxaa la howlgeliyay 22 February 1987 kaasoo uu qaaday gantaalka Atlas. 7 sano ee ka dambeysay waxaa la diray in ka badan 10 dayax-gacmeed oo GPS ah oo si sax ah ugu xirmay orbitka. Marka laga reebo hal mid ka mid ah 12kaas dayax-gacmeed, Navistar 7 ayaa kharaabay, waxaana xaqiijiyeen dayax-gacmeedyadan qaybtooda koowaad habsami u shaqaynta nidaamkan. Casharadii laga bartay mashruucan ayaa keenay in la diro qaybta labaad ee dayax-gacmeedyada, taasoo dhammaystirtay 24 dayax-gacmeed ee GPS-ka si ay u helaan GPS adduunka oo dhan u isticmaali karaan ciidamada Mareykanku. Nidaamkan ka kooban 24 dayax-gacmeed ayaa dabaanad qaadaya in ugu yaraan 4 dayax-gacmeed oo ka mid ah ay mar walba si buuxda u arkaan taako walba oo dhulka dushiisa ka mid ah. Taasi waxay xaqiijinaysaa in GPS-ku awoodo inuu farta ku fiiqo meel walba oo dhulka ka mid ah oo aad ku sugan tahay isagoo adeegsanaya nidaamka saddex-galeynta. Sida caadiga ah waa la garan karaa halka saxda ah ee dayax-gacmeedku joogo waqti kasta, taasoo ka dhalatay orbitalada la saadaalin karo, iyadoo xarumaha maamulka dhulkuna si joogta ah u hubiyaan in dayax-gacmeedku joogo halkii laga filayay waqtigaas. dayax-gacmeedyada GPS-ku waxay si joogta ah u soo diraan sinyaalo raadiye ah, kaasoo receiver-ka GPS-ka ee telefoonkaaga ku jira si joogta ah u dhageysanayo. Signalkaas wuxuu telefoonkaaga u sheegayaa halka dayax-gacmeedku joogo iyo xilliga la soo diray, taas oo receiver-ka u saamaxaysa inuu xisaabiyo inta dayax-gacmeedku u jiro maadaama la yaqaan xawaaraha sinyaalaha raadiyuhu ku socdo oo ah xawaaraha iftiinka. dayax-gacmeed walba waxa uu sheegayaa inaan ku jirno masaafo cayiman oo kiiloomitiro ah, kadibna waxaan ogaanaynaa inaan joogno meel ka mid ah wareegga goobo kubadeed shakaalkeedu la eg yahay masaafadaas. xogtaas in laga helo 4 dayax-gacmeed waxay awood noo siinaysaa in si sax ah loo ogaado meesha qofkaasi joogo dhulka ka mid ah, iyadoo la isbarbardhigayo sawir kubadeedyada lana eegayo halka ay iska jaraan. Waqtiga saxda in la ogaado mar walba waxay muhiimad weyn u leedahay habsami u shaqaynta nidaamkan. In ilbiriqsiyo barkood xataa waqtigu uu khaldanaado waxay masaafo cabireedka ku keenaysaa khalad aan la aqbali karin. sidaa darteed ayaa dayax-gacmeed walba waxa uu leeyahay saacad atomic ah, taasoo ah aaladda ugu saxsan ee waqtiga lagu ilaashan karo oo jirta, laakiin sababo dhanka weynaanta iyo qiimaha sare ee lagu iibsado ah dartiis laguma dhajin karo telefoonka. taas beddelkeeda waxaa dayax-gacmeedyada GPS-ku update gareeyaan saacadda telefoonka si joogto ah si loo hubiyo inuu xisaabin karo masaafada saxda ah ee u dhaxaysa isaga iyo dayax-gacmeedka. Si loo ilaaliyo cabir waqtiyeedkaasi inuu sax yahay, waa in loo dhug lahaado saameynta isku xirnaanta gaarka ah ee walxaha, waayo receiver-ka dhulka yaalla waxa uu ku socod yar yahay dayax-gacmeedka orbitka jooga oo saacaddii jaraya masaafo dhan 14,000 kiiloomitir. Markaas aragtida isku xirnaanta gaarka ah waxay saadaalinaysaa in saacadda atomiga ah ee dayax-gacmeedka ku rakibani ay dib u dhac yar samayso, taas darteedna ay waqti ilaa 7 microsecond ah ka dambeyso saacadaha dhulka yaalla maalin walba. intaas waxaa sii dheer in dayax-gacmeedyada ku wareegaan 20,000 kiiloomitir masaafo u jirta dhulka dushiisa, taas oo ka dhigaysa awoodda saameyneed ee cufis-jiidadka dhulku ay ku leedahay waqtiga hawada sare mid aad u yar ama aan jirinba. Aragtida isku xirnaanta guud iyana waxay inoo sheegaysaa in saacadaha ku dhow cufka dhulka ay ka gaabiyaan kuwa orbitka yaalla. Marka haddii aan xisaabino kala baahida waqti ee ka dhalata awoodda cufis-jiidadka dhulka, haddana aan xisaabino masaafada orbitka ee 20,000 kiiloomitir saacaddii dayax-gacmeedku dhulka ka fog yahay dib dhaca ka imaanaya, waxaan arki karnaa in saacaduhu kala fogaanayaan ilaa 45 microsecond maalin walba. isugeynta labadaas saameyn ee aan soo xusnay darteed waa in saacadaha ku rakiban dayax-gacmeedyadu noqdaan kuwo ka dheereeya saacadaha dhulka waqti dhan 38 microsecond kuwa dhulka yaalla. haddii saameyntaas lagu jaangooyeen arrintan, GPS-ku maalin walba 10 kiiloomitir oo masaafo qalad ah ayuu sheegi lahaa, taas oo gebigiisaba wax aan micno lahayn ka dhigi lahayd. waafajinta Allah ka sokow mahadiha ka gaartay arrimahan waxay ku fududaadeen dayax-qaadyadii iyo aragtiyihii Einstein ee koonka oo dad injineero cilmiga qaybihiisa kala duwan bartay ay taxliiliyeen si wax faa'iido leh looga sameeyo. dadaaladaas oo ay keenay maanta inay jiraan adeegyo sida GPS-ka aan ka hadlayno.
balse sidaan hore u soo xusay nidaamkan ma ahayn mid mar walba dadka caadiga u furnaa waxa kaliya oo lahaa arrimaha ciidamada marka haddii dadka caadiga loo fasaxo waxay u arkayeen inuu yahay qalab loo isticmaali karo isla iyaga in lagu waxyeeleeyo waayo madaafiicda waxaa loo isticmaalaa GPS-ka si loo hago fikirka ah in shacabka loo fasaxo wuxuu yimid 1983 markii diyaarad nooca Su-15 ee Sovietku ay duqeysay diyaarad rakaab ah oo Kuuriya lahayd taas oo ka soo luntay khadkeedii kadibna gashay aagga diyaaradaha ka caagan ee Sovietka khaladkaas oo ahaa mid laga baaqsan karay haddii uu jiri lahaa nidaamka cusub ee hagidda dayuuraduhu sidaa darteed ayaa 16 Sebtembar 1983 madaxweyne Ronald Reagan ku dhawaaqay in GPS-ka loo furayo dadka shacabka ah inay isticmaalaan weliba si lacag la'aan ah balse arrin ayaa jirtay qarsooneyd signaalada GPS-ka ayaa laga dhigay inay ku dhacaan meel 100 kilomitir ka durugsan halka saxda ee la rabay taas oo xoogaa faa'iido ku jirtay balse heerka maanta aan ahayn taas waxay weli ka dhigaysay mid awoodda saxda ee GPS-ka adeegsigiisa baaqi uga sii dhigaysa gacmaha ciidamada Mareykanka aan loo isticmaali karin wax iyaga khatar ku ah 2000 ugu dambeyn madaxweyne Bill Clinton ayaa saxiixay dekreeto lagu joojinayo arrinta hoos u dhigidda 100 kilomitir ee GPS-ka signaalada saxda ahna loogu fasaxayo dadka shacabka ah oo ay ku jiraan kuwa ka baxsan Mareykanka taas oo uu ka arkay faa'iido weyn oo dhanka ganacsiga ah inuu GPS-ku u leeyahay shirkadaha dalkiisa ee ganacsiga ciidamada Mareykanku waxay carqaladeeyaan signaalada GPS-ka goobo cayiman sida Ciraaq iyagoo khalkhal gelinaya mowjadaha raadarada si ay u carqaladeeyaan fariimaha uga imaanaya satellite-ka waana arrin u sahlan weli marka ay doonaan mana aan wax ay adag tahay in la sameeyo 2013 darawal taraagla ah oo ku nool stateka New Jersey ayaa damcay inuu batroonigiisa ka qariyo GPS-ka gaariga kadibna wuxuu isticmaalay khalkhaliye ama jamar yar balse isagoo aanu kaseenin ayuu mar walba khalkhalinayay nidaamyadii hagidda ee airportka caasimadda New York oo uu mar walba agmari jiray iyadoo la adeegsanayo nidaamka jaamgareynta oo ay fududahay in la sameeyo waxay US awood u leedahay inay wadadaas qaado xilli ay doonto ayna curyaamiso dhammaan ganacsiyada ka socda daafaha dunida sidaa darteed ayay wadamo badan oo dunidu u samaysteen GPS-yo iyaga u gaar ah ruushku wuxuu leeyahay 24 dayax gacmeed oo GPS ah kumana tiirsana Mareykanka nidaam la mid ah ayay leedahay China Yurubna sidoo kale halka Japan ay leedahay 2 dayax gacmeed oo hawsha u qabta ugu dambeyn India ayaa leh 7 dayax gacmeed oo dhulkeeda ku filan nidaamkan ayaa ah mid ka mid ah natiijooyinka ugu waaweyn ee ka dhashay baritankii loo galay maamulka hawada sare tan waxaan ka dhadhansan karnaa sababta wadamada awoodda hawada sare aan ka qaybta ahayn ee ku yaala Aasiya iyo Afrika dhamaanteed ay ugu socdaan awaamirta dawladaha aan soo sheegnay looguna yeeriyo masiirkooda nooca siyaasadeed ee jihadooda iyo arrimaha dalkooda sida anaga dalkeena oo kale waayo madaxdeenu waxa ay ku qasban yihiin waxyaabo badan oo qofka shacabka uusan ogeyn balse taas cudurdaar ma noqonayso qof walba oo mas'uul ahna waxa saaran waajib ah inuu ka xoreeyo dalkiisa gumeysiga casriga ah ubadkiisana u diyaariyo waxbarasho tayo leh oo tartan kula galo dadka doosha ka qabsaday waxaan hay Salaaxudiin Soomaali halkan waa Handaba Academy kulanti dambe oo xiiso leh